السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا يوحرن وين السلام يا ما شاء الله تبارك الله. waxaan jirnaa ما شاء الله ماشي meel la gala meesha ugu khayrka badneed ku jirnaa oo ahayd وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. meel la gala meesha ugu khayrka badan ilaahay beedkiisa, ilaahay gurigiisa, ilaahay maaragtay hoygiisa ayaan ku jirnaa. waa meesha la galo meesha ugu khayrka badan weeyaan. subxaanallah, ka waran guriga ilaahay haddaad maalin walba shanta waqti booqato maxaad helaysaa? farxad midii ugu weyneedaad helaysaa, farxad midii ugu qiimo badneyd baad helaysaa. yaa والله بالله maalinkaas wax ka farxad badnaanaya ma lahan. yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kugu soo amray inaad shanta waqtiba aad sujuudo, shanta waqtiba aad sujuuda dhulka u dhigto. maxaa ka qiimo badan? adigay ku anfacaysaa, aday wax ku taraysaa. wallahi adigay wax ku taraysaa, qof kale inaan waxba u taraynin. yaa walaalahaygiyo waxa ina leeyahay markasta aba iyo saacad walbaba waa inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala aad xusto, digrigiisa badiso. ilaahay ku nimco ilaahay hadduu ku siiyo wax kaa maqnaanaya ma jiraan. hal mar aad u sujuudo addoonkii ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga malaa'igta asagoo ka wax og badan ayuu wuxuu leeyahay addoonkaygii baa ii sujuuday. ka waran ilaahay waa faanayaa markaad u sujuudda. ka waran walaalkiiyow maxay kaa dhibaysaa 2 daqiiqa iyo 3 daqiiqa iyo 5 daqiiqa wax ka yarba inaad maalinkii 5 waqti ilaahay u sujuudo? aday naftaada wax taraysaa, naftaada ayaad wax ku taraysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala hadday ummadoo dhan wada caasiso waxba ka goyn maayaan, hadday wada caabudaanna waxba u ziyaadin maayaan. laakiin liawalahu maxaa weeyo naftaadii ayaad raalli aad ka dhigtay oo ilaahay siduu kuu doonay oo kuu amray oo ilaahay kugu soo dejiyey shuruudihii loogu talagalay kugu soo dhiibay rasuulkeenni calayhi salaatu wasalaam. waa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu yidhi risaashaas iga gaadhsii u digihii caddaa innii nadiirun mubiin, innii anigu waxaan ahay nadiirun mubiin, kii wax digayay baan ahay buu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. marka waad ogtihiin ahlu naarka markay leeyihiin yaa maaliku liyaqda calaynaa rabbuk, maaligow rabbigaa noo weydii inuu nafta naga qaado. oo maxay ku tabinayaan? meeshaa ay ku jiraana meel cadaabteedu aad ay u kulul badan tahay. oo waxay leeyihiin maaligow noo weydii rabbigaada inuu nafta marba naga qaado. marka maxay ku tabinayaan oo la calaacalayaan? waxay la calaacalayaan adduunyada markay joogeen ayay aayaadkii ilaahay subxaanahu wa tacaala iska indha tireen oo indhaha ka qarsadeen. ayagana maalinkaa indhaha ayaa laga qarsanaya. way ooynayaan, way calaacalayaan. hase ahaatee calaacalka iyo ooyintaana waxba tari mayso. maxay leeyihiin? war naarta maxaa ina geliyey markii la yidhaahdo waxay leeyihiin qaaluu lam nakun min almusalliin. bal fiirso, qaaluu annaga lam nakun min almusalliin, war kuwa tukada maanu ahaan jirin ayay leeyihiin. oo salaada inay qiimo badan tahay ayaan ku sheegayaa. kuwa tukada maanu ahaan jirin ayay leeyihiin. marka waxaan ina leeyahay naftaydii iyo naftiinaba war salaada, war salaada, war salaada. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maalinkuu dhimanayey bilaal baa u soo galay oo yidhi rasuulkii ilaahayow way ku sugayaan dadkii inaad salaada tujiso. nabigeenna oo calayhi salaatu wasalaam khayru khalqullaahi oo ugu khayr badnaa ayaa wuxuu u soo gurguurtay inuu salaada jamaca dadka ka bixiyo. inta jooruu soo tallaabeeyo dhulku ku dhacay lama tirin karo. liawalow salaada ayaa ku adkayd. marka salaada ha lagu dadaalo, war salaada ha lagu dadaalo. waa furihii adduuniya aakharaba. adduunka haddaad joogto ayadaa furo kuwa ah, aakhara haddaad joogtana ayadaa furo kuwa ah. marka ha la dadaalo. waa walaalkii shaakir. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.